dowladda Soomaaliya ayaan weli baahin natiijada baaris dhab ah oo ay ballan qaaday kadib ismiidaamintii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho oo sanad kaamil ah ay ka soo wareegtay geeridiisa. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo dhaawac ka soo gaaray weerarka xafiiskiisa lagula eegtay xilli uu gudoominayay shir toddobaadle ah ayaa 1 Agoosto gudaha dalka Qatar ugu dhintay waxyeeladaas. ugu yaraan 10 ruux oo uu ka mid yahay Injineer Yariisow 3 gudoomiye degmo 2 taliye 1 agaasimo guud iyo 3 agaasimo waaxeed ayaa ku nafwaayay falkaas 12 kalena way ku dhaawacmeen. Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka ayaa xustay in bartilmaameedku uu ahaa James Iswan ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo maalintaas booqasho aan la sii shaacin ku tagay xarunta gobolka Banaadir. warar dhanka amniga ah ayaa xaqiijinaya in sababta qaraxa u dhici waayay intii uu diblomaasiga joogay xarunta gobolka ay ahayd in ilaaladiisa gaarka ah ay wateen qalab ka hortagaya waxyaabaha qarxa iyo hubka culus. madaxda sarsare ee wadanka ayaa aaska qaran ee loo sameeyay marxuumka kaga dhawaajiyay in ay u argudi doonaan isla markaasna hay'adaha nabadgelyada ku sameyn doonaan baaritaan maxsuulkiisana la soo bandhigi doono ama natiijada ka soo baxdana la soo bandhigi doono. baaritaanka ayaa ka bilowday gudaha xarunta gobolka Banaadir iyadoo baarayaasha ay la wareegeen kaamirooyinka qarsoon oo duubay dhammaan waxyaabihii gudaha ka dhacay maalintaas oo uu qaraxa ku jiro. bishii Agoost wasaaradda amniga gudaha ayaa xustay in qaraxa ay fulisay Basiira Cabdi Maxamed oo agaasimo ka ahayd gobolka Banaadir. Basiira waxay ahayd haweeney aragga naafo ka ah oo Yariisow shaqaaleysiiyay. inkasta oo hadalkaas ay dureen siyaasiyiin iyo khubaro amni, barnaamijka galka baarista ee VOA-da ayaa ogaaday in haweeneyda magaceeda saxda ah uu yahay Maryan. xubno ehelkeeda ka mid ahna ay Al-Shabaab yihiin. gabar caawiye u ahayd Maryan oo magaceeda lagu sheegay Hodan ayaa la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigtay, balse waxaa la fahamsan yahay in ay u baxsatay dhanka deegaanada ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. waxbaa la qarinayaa. Maryan iyo Hodan ayaa la wariyay in ay dhismaha gobolka Banaadir galeen 3 saac ka hor inta uusan qaraxu dhicin. ilo amni waxay xaqiijiyeen in maalintaas aanan la baarin ama baaris la marsiin Maryan iyo Hodan. dadka duraya faahfaahinta hor u dhaca ah ee ay dowladda ka soo saartay baarista weerarkaas ayaa cuskanaya in ay sixi weyday magacyada labada haween oo ay ku kala sheegtay Degan iyo Basiira, taas oo aan waxba ka jirin. saraakiil ayaa ka shanqariyay in Injineer Yariisow uu bilo ka hor qaraxa siiyay Maryan $10,000 markii ay u sheegtay in ay dhakhtar u aadayso dalka Hindiya, balse waxay noqotay been iyadoo aaday deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Maxamed Abuukar Islow Ducaali, wasiirka amniga Soomaaliya oo la isku dayay in wax laga weydiiyo sanad kadib baaritaanka shirqoolkaas, ayaa ka gaabsaday in uu cadeeyo mowqifka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. 2 qof oo ka howlgalayay xarunta gobolka Banaadir oo midkood uu yahay agaasime kan kalena uu ahaa fanaan ayaa lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo. fanaanka oo qiraal sameeyay weli maxkamad lama soo taagin. General Yusuf Siyaad Maxamed Indhacde ayaa aaminsan in sababta dowladda u soo bandhigi lahayd natiijada baaritaanka ay tahay in ay jiraan waxyaabo cadeymo ah oo laga qarinayo indhaha dadweynaha. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, gudoomiyaha iyo duqa lagu bedelay Injineer Yariisow, ayaa dabayaaqadii sanadkii hore 2019 waxa uu daha ka rogay in uu ka badbaaday shirqool dil oo uu maleegay mas'uul ka tirsan gobolka Banaadir, balse ma uusan cadeyn nooca weerarka iyo goorta. hase ahaatee wuxuu tilmaamay in shakhsigaas loo gacan geliyay hay'adaha ammaanka. gudaha Soomaaliya, baaritaanada kiisaska xasaasiga ah ee dilalku ka midka yihiin ayaa ku soo dhamaada afdaboolan dahab marka ay marxalado waaweyn lugaha la galaan, taas oo gabaad iyo dhiirigelin u ah gacan ku dhiiglayaasha.